إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله سبحانه وتعالى نعم كي سوغو نمعيي الضمضة وكوفر بضان وأن لا تري كرين ولا تركوبي كرين لكن نمعادة أقوين وإلهي أقول نمعيي جن إيا إنسي في آخر الزمان وإنه إلهي كسر دحدري رسولك صوبان صلى الله عليه وسلم والله صدري شريعة ما يستران كدين رسولك وسو غارسيي امدا شرعي لا صدري او ما يستران او wax kaste umadu u baahan tahay koobsaday waxaan rabaa ilaahay idankiis dhowr nuqdo inaan isdul taagno marka laga hadlayo shariicada islaamka dhowr nuqdo qofku inuu fahmo waa muhiim hadduusan dhowrkaas nuqdo fahmin qofku adduunyada wuxuu ku noolaanayaa taxayur aakhirana waxaa dhici kartaa gooraan wax laga gaarin inuu shanlaayo sidaas darteeda waxaa laasim ah inuu qofku dhowrka mas'ale soo socota fahmo wixii xaqa oo uu fahmana siday tahay uu raaco ugu horeyn waxaan rabnaa inaan niraan shariicada marka laga hadlayo awalan sharci in la jideeyo ama la soo dejiyo waa xaq Allah iska leeyahay asaguna uu ballan qaaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo uu soo diray xataa qayb kama siin oo ma dhihin shariicada islaamka uu ku soo dhiibay qayb ku dar ama inta doonto ku dar laakiin dhammaan Allah isaga soo dejiyay waa arin ilaahay la kaliyahay rasuulkana sallallahu alayhi wasallam wadiifadiisa ama shaqadiisu waxay tahay diinkii ilaahay soo dejiyay uu soo dhiibay siduu ahaa inuu ummadda u soo gaarsiiyo sagoo dhammaystiran waxna aan laga jarin waxna lagu darin inta kale jinni iyo insi culumo iyo caamo waajibka saaran wuxuu yahay diinkii nabigu soo gaarsiiyay inay u hoggaansamaan haddii saddexdaas martaba ay iskaga ka daranto taxayuraad ku noolaanaysa waa inaad fahanto sharciga yaa soo dejiyay waa inaad fahanto wadiifada nabigu maxay ahayd sallallahu alayhi wasallam waa inaad fahanto wadiifada culumada iyo dadka kale maxay tahay wadiifadooda taas waa inaan fahanno al-imam محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله وحيري من الله الرسالة وعلى رسول الله البلاء وعلينا التسليم الله حقي سوحا كتمت رسالة دينك وحو كيمت الله حقي سأساقا سودجي رسول كان وحا واجب كوا رسالة أصدت كينو سوق غارسيو annagana waxa waajib nagu ah risaalada xagga rabbi ka timid inaan u hoggaansan
saddexdaas hadday iskaga kaa qasmaan waxaad noqonaydaa qof taxayur ku nool wuxuu imaamu albukhaari ku sheegay hadalkaas baabu qowlillaahi tacaala yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata wallaahu yacsimuka min annaas shayga allah uu la keli yahay waa risaalada diinka wey risaaladu waa waxa nabiga lala soo diray sala allahu calayhi wasalam waana soo xasilay arrinkaas oo diinkiioo kaamil ah uu ilaah subxaanahu wa tacaala nabiga la soo diray ilaah wuxuu yidhi subxaanah laqad manna allaahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin ilaah wuxuu yidhi subxaanah ilaahay gallad iyo abaal iyo nicmo ayuu u galay dadka mu'miniintaa markii uu ka soo dhex saaray rasuul ayaga ku jinsi ah luqadiisa ay fahmayaan wuxuu sameeyo ay samayn karaan oo ku daya karaan ilaahay abaal buu u galay rasuulkaasoo dadka ku dul aqrinaya ilaahay aayaadkiisa dadkana ku dahiraya aayaadkaas uu ku dul aqrinayo oo aayaadka iyo axaadiista u aqrinaa waxa ay amrayaan raacidooda waxay reebayaan kaadhidooda ayaa dahaarada qofka ku helaya wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wuxuu rasuulkaasu dadka barayey ooy ahaayeen waxa uu aqrinaya ee loo soo dhiibay kitaabka iyo xikmadda xikmadduna waa axaadiista sidaas waxaa ku caddaatay waxa nabiga loo soo waxyooday waa laba shay waa kitaabka qur-aanka iyo axaadiista haabitada ee nabiga ka sugan sala allahu calay wasalam labadaba xagga rabbiyay ka yimaadeen waxyeyn ayaa la yidhaahdaa nabiga loo soo waxyooday ilaah wuxuu yidhi nabiga hortiis waxaad ahaydeen dad baadiyaysan oo dalaal ku sugan ilaah wuxuu yidhi subxaanah waanzala allahu calayka alkitaaba waalxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullaahi calayka cadiima waxaa ilaah nebiga suubanow dushaada ku soo dejiyey kitaabka iyo xikmadda kitaabku waa qur-aankii xikmadduna waa sunnadii labaduba waa waxyeyn ilaahay baa soo dejiyey nabiga sala allahu calayh wasalam rabitaankiisa maaha wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa waa waxyeyn waa laba waxyi oo ilaahay nebi maxamed u soo dhiibay sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu ku baray waxaadan horay u oqoon fadliga iyo abaalka ilaah kugu leeyahayna waa mid weyn ilaahay yidhi ilaah wuxuu yidhi subxaana asagoo la hadlaya zawjaadkii nabiga suuban sala allahu calayhi wasalam wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illaah waalxikma xasuusta waxaa lagu aqrinayo guryihiinna oo ah aayaadka ilaahay iyo xikmadda aayaadku waa qur-aankii xikmadduna waa xadiidkii labaduba waa laba waxyi xagga rabbiyay ka yimaadeen nabiguna labadaasuu aqri jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taasu waa risaaladii xagga rabbi ka timid xadiid iyo qur'aan waa diinka ilaahay nebi maxamed u soo dhiibay sala allahu calayh wasalam rasuulka dushiisa waxaa ahaaday gaarsiin oo diinkaas loo soo dhiibay oo ka kooban qur'aanka iyo sunnada siday ahaa diinkaas asagoon wax laga jarin waxna lagu darin inuu dadka soo gaarsiiyey sidaas ayaa waajib ku ahayd sida rabbulcaalamiin uu yidhi fahal cala arusuli ila albalaaqu lmubiin rususha dushooda miyuu ahaaday gaarsiin cad maahane wax kale ma ahaanin wey wax kaloo dushooda lama arko inay diinka wax ku daran iyaga ma saarna midda kalena dadka qulubta inay hanuun ka geliyaan ma saarna laakiin waxaa saaran waxyeynka loo soo dhiibay inay dadka gaarsiiyaan si gaarana ilaa rasuulkiisa wuxuu yidhi wamaa cala arasuuli ila albalaaqu lmubiin rasuulka muxameda sala allahu calayhi wasalam dushiisa wax kale ma ahaanin waxa ahaaday in uu soo gaarsiiyo diinkii loo soo dhiibay gaarsiin cad oo sidii ugu kaamilsaneed oo cad ilaah wuxuu yidhi subxaana fa inamaa calaa rasuulina albalaaqu lmubiin
rasuulkeenna dushiisa waxa ah oo kali ah oo aan wax kale dushiisa saarnayn waa gaarsiin cad ilaahayna wuu amray gaarsiintaas oo wuxuu yidhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbik rasuulka subanow gaarsii waxa xagga rabbi lagaaga soo dejiyey dadka gaarsii ilaahay baana dadka kaa ilaalinaya rasuulka sallallahu alayhi wasallam wadiifadaas waa gutay waxyeenkii loo soo dhiibayna sida ahaa ayuu dadka u soo gaarsiiyey sidoo ahaa marqaatina waxa uga furay dadkii uu dhex joogay ee ugu fadli badnaa ummadiisa nabiga ka gadaal oo ah saxaabadii Bukhari iyo Muslim waxa ku sugan maalintii yawmul hajj al-akbar yawmun nahri hajjatul wadaa nabigu inuu la hadlay oo uu ku yiri ala hal balagh warmayni soo gaarsiiyey diinki ilaahay soo dhiibay risaalada ilaahay soo dhiibay warmayni soo gaarsiiyey qaalu na'am markaas iraha waadna soo gaarsiiyey markaasuu nabigu yiri allahumma shad ilaahu marqaati ka noqo risaaladaad dhiibtay inaan gaarsiiyey ilaahu marqaati ka noqo sidaas yiri nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markaas yiri fal yuballigh ash-shahidul ghaib qofka jooga oo risaalada iga maqlay qofka aan joogin ha gaarsiiyo taasuna waa wadiifada culumadu ay iska leedahay oo ah diinkii rususha ay ka dhaxleen sidoo ahaa ayagoon wax ka jarin waxna ku darin inay gaarsiiyaan ummadda sidaas weeyaan nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidka ibn Maajah iyo qeyrkiis ay wariyeen wuxuu u duceeyay qof kasta oo diintii wax kamida ka maqlay oo asagoon wax ka bedelin dadka gaarsiiya taas uu duceeyay wuxuuna yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam حديث عبد الله بن مسعود نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع إلهي هنوريو قف وحنا مقلي او شيء ونغا مقلي سيدو مقلي او غدبيه وحنا ان كدرين وحنا ان كجرين وحنا ان كبدرين سيدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تاسنا waxay ku tusayda wadiifada culimada dadka dushooda waxa ah inay hogaansanaadaan waxyeeynkii nabi maxamed loo soo dhiibay sallallahu alayhi wasallam dadka arintii dushooda ahayd markii ila risaalo soo dajiyay nabiguna sallallahu alayhi wasallam uu soo gaarsiiyay dadkii waa qaybsameen ee ayaga wixii laga rabay lagama wada helin waxayna u qaybsanaadeen qof muwaffaq ah ilaahay tawfiiq siiyay إلهي وناك وافجيي راعي وضدي حقا اهد او النبي محمد dadka soo gaarsiiyay sallallahu alayhi wasallam iyo qof tawfiiqda ila kasiibay oo subulka kale raacay oo istislaamki iyo inqiyaadki laga waayay sida labadaas ay u qaybsameen ilaahay subhanahu wa ta'ala dariiqi u amray dada raacay ee ilaahu yiri wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u كان واجد كي يراع طرق دي لغا ريبينا ددا راعي او الهي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هراعنين ودوين كيير ee dhinacyada u leexda markaas waxa ay sabab u noqonayda raacidu jidka alle inay ka kala geeyaan taasay sabab u noqonayda intaas waa nuqdada koobaad oo aan doonayno qof walba inuu fahmo shariicada maxaa alle subhanahu wa ta'ala uu la kali ahaa maxaa nabiga wadiifadiisu ahayd adiga muslimu maxaa laga doonaya nuqdada labaad shariicada ilaah soo dejiyay subhanahu wa ta'ala sifaadeeda waxa kamid ah al-baqaa wal-umum wal-kamal shariicada waa shariicada ilaah ugu tala galay subhanahu wa ta'ala adoomadu inay ka diin dhigtaan ilaa qiyaamuu ka dhacayo oo ay baaqi noqoto ilaa qiyaamuu ka dhacayo wax ka dambeeyo oo nasaqayana aysan jirin baqaa iska leeda sifa leeyda waxa kamid ah sifaadeeda al-umum waa sifa waa shariica caam ah oo jinni iyo insi dhamaan laga doonayo inay ka diin dhigtaan qof dhihi kara aniga leeyma soo dejinna uusan jirin haduu yiraahdana uusan ku badbaadin sifada saddexaad oo shariicadan iska leedahay waa kamaal wax qofku u baahan yahay aqiido ama cibaado xugun ama muamalo shariicadan way koobsatay
umana baahna dhamaystirid iyo dib in wax laga raacsiyo saddexaas sifaba waa iska leedahay shareecadan ilaahayadu ugu talagalay inay baaqi noqoto waa diintu u doortay aakhiru zamaanka ilaa qiyaamuhu ka dhacayo rasuul dambo la soo dirayaa ma jiro nabi dambo loo waxyoonayaa ma jiro waa shareeco iyada loogu talagalay ilaa qiyaamaha inay baaqi noqoto ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi maa kaana muxammadun abaa axad min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam ma ahan mid ininka mida aabbihiis laakiin waa rasuulkii alleh waana midkii ambiyada lagu soo qatimay oo lagu soo afjaray oo wax rasuul ah uusan ka dambayn iyo wax nabi ah maxaa yeelay nabi haddii la qatimay in rasuul la qatimayna waa min baabi alawlaa wa axra bukhaari iyo muslimna waxaa ku sugan min xadiidi mucaawiya nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr la doono ilaahay diintuu saami ka siiyaa ilaahay diinka ayuu fahamsiiyaa wa inamaa ana qaasimun wallahu yucdi anigu waa bixinaya laakiin ilaahay baa qofka siiya nabigu diinka waa sheegayaa laakiin qofkiiba nasiibka ilaah ugu talagalaa ilaahay ka fahamsiinaya markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waana kelimadda tusayda baaqi ahaantaha shareecada kelimadan dambe wuxuu yidhi walan tazaala haadihi lummatu qaa'imatan calaa amri illah laa yaduruhum man khaalafahum xataa ya'tiya amru llah wa fii riwaayati muslim xataa taquuma asaaca nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ummaddaanu ka suulime sida riwaayadaha kale yidhahdeen waa daa'ifa qayb ummaddan ka mid ah oo ilaahay xaqa ku sugay ka suuli mayso inay arrinka alle ku taagan yihiin qofka khilaafa ama u gargaari diidaana waxba kama dhibayo ilaa arrinka alle uu ka yimaado arrinka allena waxaa loola jeedaa qiyaamaha inuu soo dhowaado oo riwaayadda muslimka leh xataa taquuma saaca ilaa saacadda qiyaamuhu ay ka istaagto marka waa shareeco baaqi noqonaysa ilaa qiyaamaha uu yimaado oo uu soo dhowaado shareecadii loogu talagalay weeye wax ka dambeeya oo shareecahu ilaahay soo dejinayana ma jirto shareecadan sifaadeeda waxaa ka mid ah inay caam tahay jinni iyo insi dhammaan maalinkii nabiga la soo diray sala allahu calayhi wasalam laga bilaabo qof kasta oo maalinkaas joogay ilaa qiyaamu saaca shareecadaana loogu yeerayaa waajibna waxaa ku ah inuu aqbalo qof ay u bannaan tahay diin kale inuu ka diin dhigtaa maalinkii nabi maxamed la soo diray sala allahu calayhi wasalam ka gadaal ma jiro qof ay u bannaan tahay inuu diin kale ka diin dhigto ma jiro ilaah wuxuu yidhi subxaana wallahu yadcuu ilaa daari salaam wayahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim ilaahi weynaa subxaana wuxuu dadka ku hanuuninayaa waddada toosan taas ugu yeeraya wallahu yadcuu waa u yeeraya alleh qof kastuu ilaahay u yeeraya oo jin iyo insi ka mid ah wuxuu ugu yeerayaa waddada badbaadada daarusalaam waa daarta jannada waxaana ilaah ku hanuuniyaa qofkuu doono waddada toosan ee rilada ilaahay lagu gaaro ee jannada tagteen leexleexan aayaddaas waxay yidhahdeen ahlucilmigu waxay ishaaraysaa ummatu dacwa iyo ummatulijaaba ummatu dacwa waxaa la yidhaha dhammaan maalinkii nabiga la soo diray sala allahu calayhi wasalam laga bilaabo ilaa qiyaamuhu ka dhacayo qof kaste waktigaas nool ee ka mid ah jinni iyo insi qof kastee soo maray waktigaas waa ummatu dacwa waxaa loola jeedaa dacwada nebi maxameda ku wajahan dadka loogu yeeraya waa asaga ummatulijaabana waxaa la yidhaah waa ummaddii aqbashay dacwadaas ee islaamnimada gashay ee risaaladii rabbi soo diray aqbashay u hoggaansantay ilaah markuu yidhi subxaana wallaahu yadcuu ficilka mafcuulkii waa la xadf yadcuu mafcuulkii waa la xadf ee yadcuu kulla axad wey qof kasta waa u yeeraya ilaahay axad kastuu u yeeraya ilaa daari salaam ugu yeeraya asbaabaha mafcuulka loo xadfay ka mid tahay liifaadati alcumuum inuu cumuum faa'iideeyo qof kasta oo jin iyo insi ka mid ah ayaa rabbi u yeeraya taasu waa ishaaro oo aayaddu ishaarayso ummatu dacwa dadka diinkan loogu yeerayo wayahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim qofku asagu doonana waddada toosan uu ku hanuuninayaho wuu aqbalayaa risaaladii taasuna waxay ishaaraydaa ummatulijaaba dad ilaahay tawfiiq siiyey ee aqbalay risaaladii waa dadkaas xaqa aqbalay oo galay diinkii islaamka
مسلمين تكمد نقضي شريعة إسلامك شمول كذا وحا كمد إني عام تهي عد والبا لقد دون إني يوهو جانسنتو إلهي قول كيسا سبحانه وإلهي يري يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رسولك سبحانه واحد كتر هذا الوير ضدك وارددوا أنيقا وحانا هاي إرقي إلى صدري وحقنا الله صدري دمانتين هل قف oo jinniga insi kamid maalinki nabiga la soo diray laga bilaabo nabi maxamed rasuulullah saga loo soo diray nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam hadiiska sahih muslim ka wuxuu yiri walladhi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma ummadaas waa ummatul ijab hadiiskan si gaar ah u dhawaaq waxaana ku tusaya inaysan ahayn ummadu kuwii xaq aqbalay waxa nabigu yiri والذي نفسي بيده ما من أحد من هذه الأمة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد ولفظ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني قف أمتان كمدا يهود هذا كريستان هذا إدو ربا هذا قف أمتان كمدا أو إمقلي ومقلي نبي محمد الله صلى الله عليه وسلم كدبنا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به كدبنا دنتا أصدقهم رمين رسالة يدينك ليلة صدري إلا كان من أصحاب النار وحو كمت نقضى ريرها النار قف كستا أمتان كمدا أما يهود هذا أما كريستان هذا أما مجوسا هذا إدو ربها النور مقلي إن لي صدري كدبنا aan rumayn diinkii leela soo diray saas ku dhinta wuxuu kamid noqdaa reeraha naarta yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam marka diin kale oo markii nabi maxamed la soo diray kadib ilaah uu aqbalaya ma jirto illa islaamnimada maahan wax diin oo kale ilaahay aqbalaya ma jirto sahih muslim ka xadiiskaas ku sugan waxaana rumaynaya ilaahay qowlkiisa subhana oo ilaah uu yiri waman yakfur bihi min al-ahzab fan-nar mu'iddu إلى وحي قفك كفريا قرآن كالنبي لو سو ديبي صلى الله عليه وسلم أو كوحاها كلا دوان كميدا أما يهود أما كريستان أما مجوسي أما الذين كلا أنوه كان سمين كتاب كاس قف كاس مكان كالله بلنقاضي وجهنم والنار فالنار موعد سعيد بن جبير أرضك عبد الله بن عباس وحيري آيات داسو waxay sheegaysaa qofka madhabtu rabaha sheegto milladu rabaha sheegto haduusan u hogaansamin kitaabka ilaah nabi maxamed u soo dhiibay sallallahu alayhi wasallam qofkaas ahlu naar noqon ilaahayna ma aqbalayo wixii kale oo ka diin dhigto shariicadan sifadeeda saddexaad waxay tahay waa kamaal waa shariicad kaamil wax kasta oo ummadanu ay u baahan tahay shariicadan way ku jirtaa way dhici kartaa qofku inuu garan waayo laakiin ma dhici karto shariicada insan ku sugnayn wax kasto qofku u baahdo ama usuusha diinta ama furuucdeeda diin ahaan wixii loogu baahdo ilaahay wuxuu yiri subhana al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-diina maantaan inin kaamil yeelay diinkiinu ilaahay al-yawma akmaltu lakum diinakum diinkiinu maalinka maantaan inin kaamil yeelay maantaas waa maalinkii nabigu sallallahu alayhi wasallam oo Arafat taagna maalin jumca ahayd sanadii tornaada hijriyada hajjatul wadaa maalin jumca oo Arafat taagnay kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam 8 casho wax ku dhow ayuu noolaa kadibna ilaahay uu oofsad maalinkaas ilaahay yiri diinkii waa in kaamil yeelay nimcadii aan dushina ugu talagalayna waa ku dhamaystir nicmadii islaamka ilaahay uu dhamaystir وحير حافظ ابن كثير أنا دابا صعدت ورضيت لكم الإسلام الدين وحان رالي إن كاغا أهينا واحد تهي حق الدين أهان وحلق الدين ديكتو وإسلام لماذا أوكالي حافظ ابن كثير آيات داس تفسير كذا وحيري هذه أكبر نعم الله عز وجل تنوحي كمتهي إلهي نعم كي سميد أقوي دين لما يستيران أو وحكستو الله بعد اللي هليو إلهي آخر زمان مسودجيو ونمعada ugu weyn oo ilaahay adoomada u soo dajiyay ummadan dushoodana ugu nimceeyay haythu akmala lahum ta'ala diinahum
meesha uu ilaah u dhamaystiray ummadan diinkeedii falaa yaxtaajuna ilaa diinin gayri uma baahna ummadan u baahamayaan diin oo aan ahayn diinkoodii ilaah u soo dejiyey walaa ilaa nabiyin gayri nabiyihim salawaatullaahi wasalaamu calayh nabigoodii nabi aan ahayn uma baahna in loo soo diro nabi dambe uma baahna maxaa yeelay nabi sharciga loo soo dhiibaa sharcigiina asagoo kaamiluhu yaalla qofkii doonaya inuu ilaahay u hoggaansamo ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء سيدا استرتيدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا إلهي كدغي أنبياء مدكي لغو سو قتمي وبعثه إلى الإنس والجن إلهينا وحو الصدري جني إنس دمان وحي مالك نبي الله صدري لقد بالله إلى قيام وكدعي كسوناده إلهي أسوء الصدري فلا حلال إلا ما أحله حلال مجرو إلا إلهي وحو حلاليي معهن وحي الله حلاليي أو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا حرام إلا ما حرم حرام نمجره إلا وحي إلهي حرم معهن ولا دين إلا ما شرع دين نمجره إلا إلهي مدكو جديي معهن نقطة مهم كواحد أو أي تاين هوستا كحريقه شرع مجره إلا إلهي دينكو سو جديي معهن واحد دين او دين نقو كره ما جيرو marka laga reebo ki ilaahay soo deji wax shaygan wuxuu diin ku noqon kara inuu yahay alla inuu soo deji bis si kale diin kuma noqon karo ma ahan sheekh hebel ay diin kuma noqon waynaad fahantaa sheekh hebel wuxuu yiri goormay diin noqdaan waa markay waafaqaan diinka alla soo deji maxaa yeelay sheekh hebel shaqadiisu maxay yahay in uu gaarsiyo dadka diinka alla soo deji marka diin ma jiro إلا إلهي مدكو جديي معهن وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه وحكستو النبي شيغي صلى الله عليه وسلم وحكستو إلهي شيغي وحق ورون بينكم جرت سيداس درادين إن دينتي كامل تاي وحكت من أن الأرق أن الله باهنين إن قدال وحلوغات درو ومد النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري مسلم من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قفك وحكو صدر أرهن كيغان وأمر الدين أرهن كيغان دين كيغان شيئا هراء ومدهين أرهن كاسلغا أقبل ما هو مردود محايا لي هذه شيء كمد يهي دين تناقص أول إيه هدوسا كمد أهين الدين ما حقيقة مركة كمد ما هو شيء كسته أو قدال لوغا سو تيريو أو دينك النبي إله لا صدر أن هراء ومدهين ومردود ما الله أقبله sababtoo diinku asagoo kaamil ah ila soo deji waxa lagu soo daray diin ma kana mid ma hadii la yiraahdo waa kamid waxay noqonaysaa diintu hore kaamil uma ahayn naaqis ee taasa ka dhalanay taasuna waa baadi shariicada islaamka oo ila soo dhiibay waa mid kaamil ah nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam حديث أبو داود والترمذي غير كيس باي وريه وحيري تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها وحانين كغا تغي وضعت او هبين كدي مالين كدي اسكو مديين معناها ميل مقديه ماله ميل او قرصون ما جرتو شرعي الاسلام كو عاد يahay ادو inaad garaweyda waa dhici karta laakiin kii mujmala mubayyan kala yaalo meel kala lagu cadeey la yasiqu anha illa halik sharcigaas kaamilka ee cad kama leexdo illa qof halaag samay maahane قف هلاك سمي باك اللحظة صحيح المسلم كان وحا كسوغان سلمان الفارسي إلا ويديي أولغو يري هل علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراط نبي نمين بري صلى الله عليه وسلم وحكستا حتى قابك سوليغا مركا لطغو لو حاجة قلتو خراط وكيفية قضاء الحاج قابك حتى سوري مركا لا غلو لو حاجه غوتو حتى نبي نمين بار او و كتغي ما جيرو ميا قال اجل ها شيء نبي كتغي ما جيرو صلى الله عليه وسلم وانا بري وح ولبا حتى قابك لو حاجه غوتو وحير لقد نهانا ان نستقبل القبلة بقائد او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي بالرجيع او عظم وحير النبي صوبان صلى الله عليه وسلم وحو نغا ريبay markaan xaaje gudanayno kaadi ama saxara inaan qiblada ula jeesano wuxuu naga reebay midigta inaan ku astajoonno
oo aan iskaga marino kaadida iyo saxarada wuxuu naga reebay 3 dhagax daan dhagxaan isticmaalayno ama warqadaha iyo waxa la midka 3 ka yar inaan ku tahaaro qaadano oo aan ku asajoono nabigu waa naga reebay sallallahu alayhi wasallam wuxuu naga reebay digay sida digada dameeraha oo kale ama selaf oo kale inaan ku asajoono ku tahaaro qaadano wuu naga reebay marka wax uu reebay ma jirto hadduu marka la xaajo gudanayo uu dhamaystiray oo si walba u tilmaamay waa maxay waxa ka weyn oo qarsoon marka miyay dhici kartaa wax ka weyn inuu ka tagay asagoon cadayn taas wuxuu ku tusayaa shariicada kamaalkeeda iyo inay dhamaystirtay wax kasta oo ummadanu ay u baahan tahay dhammaan sahih muslim kana waxa ku sugan min hadith abdullah ibn amr ibn aas radiyallahu ta'ala anhuma rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam inuu yiri innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum sharra ma ya'lamuhu lahum aniga nabi iga horeeyay ma jiro illa waajib waxa ku ahaa oo xaq ku ahaa ummadiisa inuu tuso waxa ugu qayr badan oo uu og yahay uuna uga digo waxa ugu shar badan ee uu og yahay nabiguna sallallahu alayhi wasallam sidaas waajib ku aheed waana midka u gutay sidii ugu kaamilsanay wax kasta oo khayr ah ayuu ummadda u sheegay wax kasta oo shar ah ayuu ummadda uga digay إمام البيهقي شعب كوخو كوري من حديث عبد الله بن مسعود إن رسولك يري صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وإنه ليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه شيء مجرو جنة إنين دوية نار تإنين كفوغية إلا وإنين شيء وإن أمري شيء مجرو نار تإنين دوية جنة إنين كفوغية إلا وإنين كريب وحباقية مجرو إن أدوكو قروي دا ويدعي كرتا لكن شريعة وحكما مقنا هذا أدوكو قروي دا متقرنا يرادسو لكن شريعة وكامل وأنا ما يستنمت تاسنا وحابا مستاقوا الرمينية إلهي قول كيس إله أويري ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إلى وحيري وحن كسو دجين النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم دوش هذا كتابك وحوالبا عدين لعدين درادي شيء إنا اللي قلتين oo wax walba ee ummadu diin ahaan ugu baahan tahay loo cadeeyo sidaasaan ugu soo dejinay hanuun dartiisaan u soo dejinay naxariis darteedaan u soo dejinay bishaaro muslimiinta iyo muuminiinta loo bishaarayna daraadeed ayaan u soo dejinay ibn hibban wuxuu wari min hadith abi dhar wuxuu abu dhar al-ghifari radiyallahu anhu tarakana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wama ta'iru yadiru bi janahi illa indana minhu ilmu وحنا تجي رسولك صلى الله عليه وسلم أيضا شمبر بالله سكتكتير يا هوذا وسنجرين إلا علم أن كهيسن حتى شمبر تهوذا مرة يصدولس أنه علم كهيسن ساسا النبي إلهي كوفصد صلوات الله وسلامه عليه أصل كاس وحكمي هي أصوش أصل كأقوم مهم سن وقونا نعفق بدن وحنا كل شيء حرف واحد عموم الرسالة صلى الله عليه وسلم رسالة النبي إنه يهي عام لبعض بنعبا وعام مركا لغا فيريو الضوامدو وحي أباهين وعام وحو كتغي دينك إسلامكم مجرو إلهي وينا أمباهين أمدان أحد كدن بي النبي أو دين توحكو دره أمباهين إلهي أمباهين كليا وحي أباهين وحي طاهي دينك النبي لغو سودجي أو سيدي أو وحنا عن لغو دارين وحنا عن لغا جارين إن أمدا لسو غارسيو لو عديو سياس دراديد الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم waxay leedahay laba umum labadaas umum oo aan wax takhsiis marnaba gelin dhanka koobaad waxay caam ka tahay waxa adoomadu ay u baahan yihiin dhanka labaadna waxay caam ku tahay cidda nabiga loo diray sallallahu wasallam alayhi labadaba waa caam wax kasta oo adoomadu u baahan yihiin way caday hal shay oo adoomadu u baahan yihiin hadii laga hadlayo usuusha diinka iyo aqeedada iyo furuuciisa hadii laga hadlayo nuu xaq ah oo adoomadu u baahan yihiin oo ummadan ay u baahan tahay oo ka tagay ma jiro waxa shariicada islaamku cadayday dhammaan waxa adoomadu u baahan yihiin
آداب قضاء الحاجة لغا هدلو وحا شريعة إسلام كو عدايدي نين إيا حاسكيس مركي كل ميان آدابتي وكل ميان وحا شريعة عدايدي آدابتي أسيحانا قفك مسلم كا آدابتي أسو كعيو آدابتي أستاغي يمدو كفريسايو شريعة إسلام كو وحا عدايدي آدابتي وحو عنو إيا مدو وحو عبيو وحا عدايدي آدابتي مركو قاديدك كوريو إيا مركو كدغيو وحا عدايدي آدابتي سفرك إيا مركو نقاديه آدابتي أباهي أحكامتا waxay cadayday aamuska iyo hadalka ahkaamta ku saabsan waxay cadayday cuzlada inuu dadka ka dhaxbaxo iyo inuu dadka la noolaado labadaba ahkaamtooda ka hadashay waxay cadayday qaniga ahkaamta ku saabsan iyo ahkaamta qofka faqiirka ku saabsan waxay cadayday ahkaamta ku saabsan qofka caafimaadka qaba iyo midda ku saabsan qofka buka ama jiran waxay cadayday ahkaamta ku saabsan waqtiga nabadgelyada iyo waqtiga colaadda waxay cadayday dhammaan أحكامta geerida ku saabsan iyo midda nolosha ku saabsan waxa nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam arshiga weyn ee makhluuq oo dhan ka sareeya waxa nabigu tilmaamay malaa'ikta qarsoon oo loo jeedin wuxuu tilmaamay nabigu jannada iyo naarta wuxuu tilmaamay qiyaamaha iyo waxa dhexdiisa ka jira wuxuu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam macbuudka aan caabudayno tilmaan dhamaystiran ee inta adoonku uu u baahan yahay dhamaystiraysa wuxuu nabigu cadeeyay sallallahu alayhi wasallam dhammaan anbiyadii ka horeeyay iyo ummadihii loo soo diray wixii dhex maray iyo abaalmarinta ay la kala kulmeen qoladii anbiyada raacday iyo qoladii beeniday wuxuu nabigu cadeeyay sallallahu alayhi wasallam waxa aan u baahanahay ee cadawga makrigiisa iyo colaadiisa sidaan uga badbaadi lahayn iyo asbaabta looga gargaarsado cadawga ee ummaddan haday raacdo aysan dhici karin cadow hor istaagi kara iyo mid u babac dhigi kara midnaba ummaddu waxay u baahan tahay kaliya inay fahmaan shariicadii nabi maxamed lala soo diray sallallahu alayhi wasallam si ay ugu noolaadaan izza adduun iyo raalli ahaansho ilaahay ay u gaaraan ilaahay jannadiisana uu aakhiro ugu abaal mariyo sidaas daraadeed waxa waajib ah oo ay tahay shayga waajibka diinkaas kaamilka ah sida uu yahay in loogu hogaansamo waxna aan gadaal laga raacsiin waxna aan laga tagin sidaas waajib aad iyo aad wuxuu ilaahay iyo rasuulkiisu nooga digeen diintaas in laga leexleexdo ama wax lagu daro waxaan rabaa halkaas markaan joogo ciwaanka inaan wax yar ka sheego intaas ka gadaal waa nuqdada saddexaad nuqdadaas waxay tahay tamadhub muxuu atamadhub tamadhaba tamadhuban waa masdarkii ficilkaas tamadhaba oo tamafcala masdarkeedii wey معناهدنا waxay tahay ittaba'a madhaban muayyana qofku tamadhab uu sameey macnaheedu wuxuu yahay madhab gaaruhu raacay madhab gaaruhu raacay madhab gaara markuu raaco marka waa luqahantaas istilaahahan maxaa loola jeedaa tamadhub istilaahahan waxa loola jeedaa ittiba'u usul al-imam wa qawaa'idihi wa taqriiju 'alayha وإمام أئمة المسلمين تكمت أصوشي سيا قواعد وحكو استنبات سجري قفكو إنو راعي وهدو علمية مركو قواعد راعي هدو عامية هنا إمام كاس أيو مذهب كيساما أحكام تكاقاطيو أو مذهب كاسو سيقارا راعي إلا سقو قواعد يوصول فهم مية والنوعاس هدو تمذهبكم موح بنانا مسوا waxaan banaanayn hadii sidaas ay tahay waxaan leenahay koow culimada muslimiinta waa warasatul anbiya horta waa kuwii anbiyada dhaxleen laakiin waxaan u baahanahay anbiyada iyo culimada furuuqda u dhaxayda inaan wax kamida fahmo taas aan u baahan waana nuqdadaas waa nuqdo muhiim oo hoosta inaan ka xariiqna aan u baahan anbiyada koow sifaadooda waxa kamid al-ism ومعصومين مجفا رسالة أي أمة سوق جارسينيان قول يا فعل انت جفان جف إلى أمة وقتها واحد يكرمها دمان وحيدين أو أنبياء ضدك سوق جارسين ووضح حق قطعا أن شك يرجلك معصومين إذا كسي تنلباتنا ولو وحيود أنبياء تنصدحاتنا وظيفته هو التبليغ إن ضدك سوق جارسيان رسالة اللي سوديبي saddexdaas sifo laba kamid ah culimadu wax kuma laha waa nuqdada aan rabnayna hoosta ka xariiqno
laba kamida culimadu waxba kuma culimada looma waxyoodo oo waxay kuma soo dego waa koow tan labaadna culimadu macsuumin ma oo raafidada waxay qabaan ismatul a'imma laakiin ahlu sunna wal jamaa ma qabaan ismatul a'imma ma qabaan yukhdi wa yusib ay qabaan ayagu marka waa maxay waxay ambiyadii ka dhaxleen waxyooshadii loo waxyoonayay mana ahan ismadi waa maxay marka waa tabliiq cilmigii ka dhaxleen cilmigii ka dhaxleen markaasay ummadda inay gaarsiiyaan laga doonayo cilmigii ka dhaxleen marka intaas ogaano culimada shayga waajibka ku ah wuxuu yahay cilmigii ambiyada oo wax lagu darin oo wax laga jarin sidoo ahaa in ummadda loo soo gaarsiyo sidaas waajib ku ah culimada muslimiintuna shaqadaas ay u istaageen ائمة المسلمين سلف صالح من الصحابة لقى بالله إلى ائمة وقتهم بيضة عصر كان للسوق جارو طريقة سيكون ذلك ائمة ووينا إلهي سي علمك تقوى ورعني ماذا وحيكون ذلك دينك النبي صلى الله عليه وسلم قرن ما يستلم ضد كيني جارسيا هيكسونتي شريعة الإسلام وإله سودتي وحاكمت حكم منسوق أو لم نسقي وحاكمت حكم كاس دليل كي كلام نسقي إن بدلنا إسكما حاجة مرمر وايد عضايا وإسكو حاجة هل دليل كوه ذي شرا ناسقي منسوقي لكن إن بدل لما يقولوا ذي كل شيء وها شريعة الإسلام كو إله النبي قال سودي بيكمت دليل عام يمت مخصص إن بدلنا لما يقولوا ذي كل شيء وحاكمية الشريعة إلهي النبي قال سودي صلى الله عليه وسلم دليل مطلق قيد كيوم مالك لكوجير وحاكمية الشريعة النبي إلهي سودي دليل مجمل وحاليرا ولفظ السيدان أقبلك رصيدان أقبلك مثل أن كو عطين بل لبدا دلالة أيسان كالحوق بطنين وحاكيره إله مجمل كريه أمضى وقميت تجيني مثل مبينه اللحديي والله قلت لك لك كان يلغو فصير سيدا بضانا لبام يغضي كو كالجير ويدعي كرتين إسراعان ويدعضا قفكي مركا عالمكاها وحي تاي وظيفة يستاغين علمادي هذين الأئمة الأربعة أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي أحمد بن حنبل إيه غير كود ما هم مذاهب تأفر تكليل أئمة المجتهدين تاونا أفر معه ويبدين هذا يبدين وحي يستاغين إن دين كاسو شاملة والناسقي إيه منسوقي لأديي حكمك منسوقها لعدي ناسقي سين الله الشيخ كي عامكها يا مخصص كي سين لجمعيه عامكي يا وحي لغا قاسيسين لعدي مجملكي يا مبينكي لجمعيه اللي اسكو كياناي ان اي امده او عديا شقاداس يستاغي مجملهان غودهان dhamaantood marka la isku daro waa cadeey waxna kama tagin waa cadeeyeen si aday u cadeeyeen laakiin mid kasta kaliis marka la yiraahdo macsuuma imam shafi'i risaaladiisa wuxuu ku sheegaa hal imam oo aimada muslimiinta kamid oo jamciyay sunnadii nabiga ma jiro oo wada yaqaan hal xadiis ka fakan ma jiro bacda nabi qof ma jiro saasaradeeda imaamki waxa ku imaanaysa sunnadii qayb inay ka qarsoonto waxa ku imaanaysa qayb inuu garaway waxa ku imaanaysa qayb inuu arko laakiin sugnaashadeedu aysan u caday xadiisku inuu sugay sidaas waxay keenaydaa wax badan markuu waafaqo inuu marmar gaf saasa keenaysa laakiin dhamaantood ma wada gafaan oo waxa isma iskale ummadda guud ahaan ma dhici karto ummadda muslimka inay dalaal ku kulanto ma dhici karto معصومين كي دمانتو marka la isku daro laakiin mid maya uma aan macsuumin culimada muslimiin ta marka oo diinkaas cadeeyay ee bisleeyay in laga faa'iideysto juhuudoodii waa arrin muhiim mana ka suulin culimadii muhaddisiinta ay ahlu sunna inay ka faa'iideysanayaan tusaalana hadaad fiiridaan madaahibta madhab walba waxaad helaysaa xufaadii muslimiinta ku jirta وهذا الشافعية فيريدو محمد بن إسحاق بن خزيمة أو حافظها وشافعي ابن حبانك سيدوك الشافعية بيهقي شافعية دي كميدة حافظ ذهبي ابن كثيرة كميدة حافظ من حجر يقير كوضا كميدة اللي تريكري هذا مالك يفيدنا واكو جيران حفاظ
أو كمدي حافظ المقري ابن عبد البر هذا في رد حنابلة يكوجرا أو حافظ بن عبد الهادي حافظ بن رجب الحنبلي لما ترك محدثين حفاظ المسلمين إني مذهب كان راعان والأكجر وين أبطنا يولي كوا عن راعين واجري والمذهب راعي واجري ويأبطنا ين راعان لكن سيدي أحاي مذاهب تمركل الديوانيين ضد كل لبي أحاي أما الصدح وخلاصة عن كل كين دون إن شاء الله ضد هذا إمام كاس ومذهب كيسة كم مذهب كدكتاي أيو إسكار راعي وحكيه أما هذا قول راجح أنا مرجوح هذا صحيح هذا ما ضعيف هذا سيدو يهي دوب كيس أخات قارك لكن محدثين تا وحي أهايين قواعد كاس يوصول شاس إني كفايدة استان إلا وادين للدياري أو ناسق يمسوق للجمعية أو عام يخاص لك اسكو كاني أو مطلق يمقيد لسكو كاني أو مجمل يمبين لك الشقيق ضمان إني كفايدة استان لكن ما دام إمام كوسا معصوم عين مركي عضاته قول أقواشي سكمتا إنه خلافي نسك شرعي راعي جري نسك راعي جري إمام كان مقفل قادي جري مانا بخصي جري هوس ومن نقسامي جري ويودو أي جري دليل كان راعي جري ساسينا أهاي سيداس أي أهاي تصالح فيري أولا ما المسلمين ترساسي وشيء جري تاجدون سبكي طبقات كالشافعية ده وحي واللي بوحن رأينا بالأروتيو مسائل كاس أي عضاتي قول كإمامكو إنو خلافي نص شرعي أو أي نص كراعين ما كساري ده إنو مذهب كي كميدي ما كساري بقول الله المثال هدوكو خلاف ما كساري ساسين إهاجين ولي وحيري تاجدون سبكي المحمدون الأربعة أفرت محمد أفرت محمد يكليهن محمد بن نصر المروزي محمد بن جرير الطبري محمد بن إسحاق بن خزيمة محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري من أصحابنا أفرت بأصحاب تاني كمدين الشافعي هاي وغيري قد بلغوا ما قد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولبا وحين قارن درجة اجتهاد كمطلق قارن هل كاسين ولبا قارن ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي أرن كاسونا كما صارين إلى أصحاب الشافعية كمدين ما كصارين حيلا يوحى سيوغا مدين مرك ما دام الدرجة داس قارن وحيري المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه وحي كسو ساري جرين مسائل قواعد كي شافعي إيا أصوشيس قواعد كي أصوشيس أي كس تخريجي جرين مسائل ساسويري المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه مذهب كي سيري مذهب كدقى جرين لوفاق اجتهادهم اجتهاد معايا الاجتهاد كودي أي اجتهاد كيسي وافقي مسائل بدنا إلى كل خلاف جرين مت ما هلا ما صدق ما تاسونا كما صارين إلى الشافعيين هذا بقى طريقة نوعاس أو مركا أي عضاته إمام كان مذهبك أما الشيء كان كدم بيه قول كيسو إنو خلاف سيئة دليل شرعي إن دليل كشرعي على الراعه وأمرك إلهي سبحانه وتعالى إن دليل كشرعي على الراعه ودردارك النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن دليل كشرعي على قول كعلماء خلاف سن دليل كإن الراعه وطريقة الصحابة إن الراعه دليل كشرعي على قول كمخالف كاللغتغو ومذاهب المسلمين أئمة السلف الأئمة الأربعة غير كود ووصيته دي دردارن كود سيدا استرادين قفكو هدور راعه قول أي عطاته إنه دليل كخلاف سيء أو النص كشرعي هاو خلاف سيء إلهي هو خلاف نبينا هو خلافي صلى الله عليه وسلم طريقة الصحابة هو خلافي مذاهبتي أئمة المسلمين سلف كان ضمان هو خلافي قفكاس لكن رابطان كيسو كسعودا إلهي وين وحوري سبحانه وما كان للمؤمن ولا مؤمنات
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره إلى وقول سبحانه نين مؤمن إيا قبر مؤمنات وما السقنان مرحب دي إله إيا الرسول كيسو أرين حكميان خيار إني أسقنا ذي ما دعي كرتو هذا عداته حكم كان إلى سيداس كير نبي سيداس كير صلى الله عليه وسلم وما بنانا نين مؤمن إيا قبر مؤمنات إن أي خلافان أو ربيتين كود أي قاطان كانت تغان حكم كالله ما أبنانا ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قفك إلهي الرسول كي سعاسينا ضلال عد أيو لما وباديو وكتغا نسكي شرعيغا راعه قول قلافسا إلى وحو يري سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هكذا تونادين ضدك أمرك الرسول كخلافة صلى الله عليه وسلم فتنة إني أصيبته زيق إنه كدعه شرك إني كدعان بدعة إني كدعان ضلال إني كدعان قلوب تودا إلهي حقا كالليحيه أما عذاب وحنوشيه كدعه هكذا تونادين وحير حافظ ابن كثير رحمه الله محالو لجيدا فليحذر الذين يخالفون عن أمره محالو لجيدا وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته وحيروا النبي صلى الله عليه وسلم طريقيسي وشريعة إلهي الله صدره فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله ضمان أقواشا إيا أعماشا وحالقوا ميزامية أقواشا إيا أعماش النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضمان أئمة المسلمين ضمان الضمان أعماشو أقواشو ميزان وحاوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم سقال لكم ميزانية فما وافق ذلك قبل وحي وافق نبي محمد صلى الله عليه وسلم قول كيس فعل كيس والله أقبله وما خالفه فهو مردود وحي خلافنا ولا ردنا على قائله وفاعله قف كيري أما سمية لقو ردنا كائنا من كان إدو ربها النغم مرتبة ربها الجارو مغو ربنا حوطه لغا أقبل ما ولغو ردينيه سيدي كسقناته مكان حديث كي سو دليشدي بخاري مسلم من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قفك كسو دار الدين كيغان waxaan kamid ahayn waa lagu ridina mana laga aqbalay an tusibahum fitnatun halala jeeda waxa loola jeeda hu yiri fitna fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin waxa dhici karta qofka marka uu qowlkii rasuulku cad ka tago sallallahu alayhi wasallam sidii imaam ahmed uu yiri ilaahay qalbigiisa inuu leexiyo oo uu gaaloobo waxa dhici karta inuu faasiq noqdo waxa dhici karta mubtadi inuu noqdo qowlkii rasuulku cad sallallahu alayhi wasallam inuu uga tago ما قولك رسولك أيا قف بنو آدم قولك سلا قرب لك ما لا قرب لك والله قولك رسولك صلى الله عليه وسلم تاسع عيس عذاب عليم الدنيا آخر نغكرة الدنيا وقتل وحد وحبس آخرنا وعذاب جهنم رسولك صلى الله عليه وسلم وفي حديث بخاري مسلم نقول شيء أئمة المجتهدين يخطئون ويصيبون واقفا وانا أصيبا أقواشودو دن ما إني أصيبا نبي محمد وحيري صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران قفك حاكم كمركو دلالو اجتهاده واجتهاد قف الأوأ أخذ خدو فله أجران لما أجروا ليه أجر وحكولا اجتهادك ودلالي إنه حق جاره أجر وحكولا إصابة أو أصيبي إيا موجنت وحق موجين نبي وحيري صلى الله عليه وسلم وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر مركا قفك حاكمك هو حكميه أو اجتهاده أو كفه هل أجر ليه أجر كاسو أجر الاجتهاد خط إيسنا ومغفور والله نافيا محايا لي ومقصد حق عدنا كمال ليها لكن دقيقة كستو عداد خطأ واجب يكون إنه كلابت وانا سيدا يريجنا أئمة المسلمين قفك كالضنبية إمام كان إنه كوكفي أي عداتين وما برنان إنه كراع وما برنان قول خطأ نقضي أو أي عداتين نسك شرعي إنه خلاف سيئي حجة إلهي لله هرتقى معه إلهي محل له هرتقيسة قفك واحد لقد دوني يا مسلم كا مركا قول قادني حكم قادني
inuu u xisaabtamo hor istaaga ilaahay waxaad ogaatay qowlkan shiiqu inuu khilaafsan yahay nas sharci ah waad ogaato waa ku cadaatay haddaad ka tagto ilaah maalinka lagu horgeeyo ee lagu weydiiyo maxaad ku jawaabaysaa dii lagu yidhaha nabiga aan kuu soo diray maxaad uga tagtay xukunkii uu kuu keenay maxaad dhihi doontaa shiiqaygaa khilaafa miyaad dhihi doonta ilaahay waxaas ma lala hortegi kara shiiqaygaa khilaafa ma la dhihi kara inta ilaahay la hortago subxaan allah ma la dhihi karaa shiiqu isaga iga ogaa waxaan is idhi malaha isaga kaa og saasaan uga tegey ma la dhihi karaa ilaahay ma lala hortegi karaa waxaa la rabaa walaal adduunka maanta inaad joogto wax kasta ood samaynaydo waxa aad ka tegaydo inaad ugu xisaabtanto hor istaagga ilaahay oo aad qaado wax xujo ku noqon kara ilaahay hortiisa laakiin waxaan ilaahay lala hortegi karin maanta aadan dhaqan ka dhigan taasaa waajib ku ah taasaa waajib ku ah imaamu shaafici risaaladiisa waxaa ku sugan wa amaa maa dallat calayhi sunna falaa xujata fi axadin khaalafa qowluhu asunna mar hadday sunnadu tusto xugun qof sunnadaas khilaafay qowlkiisa xujo kuma sugna xujo ma aha lama raaci karo mar hadday xukunkan sunnadu tusto qowlka khilaafsan wax xujo kuma sugna diinka ilaahay iskama hor yimaado maahan diin istacaarudaya oo asaga dham iska hor imaanaya ma nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam hadduu noo sheegay xaakimkii inuu marna asiibayo marna gafayo muxuu noo dardaarmay wuxuu noo dardaarmay haddii la iskhilaafo haddii la iskhilaafo in sunnadiisa iyo sunnadii saxaabadaan ku dhegno culummadu hadday iswaafaqaan oo mas'alada culummadu ku ijmaacaan ijmaacu waa xuja sharciya oo qofka khilaafa ilaahay jahannamo ugu goodiyo mana u banaana inuu khilaafo mar hadday culummadu masalada isku waafaqaan ilaahay weyna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman yushaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إلى وحده سبحانه قفك خلاف الرسول هنونك مرقو عضاري كقضاء طريق النبي وعدي نبي يري ألي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيا سيدا سميي ألي ودينك النبي وعضار أسوأ وعد قفك خلاف قفك خلاف سبيل المؤمنين هذه المؤمنين أي وطور مران diinta marka laga hadlayana mu'miniinta waxa matala waa culumada ee caamada masaa'ilka wax kuma leh ayaga itibaaca laga raba iyo inay culumada ku raacaan ee culumadu wada ay wada maraan qofka sabiil kale mara qofka nuucaasa nuwallihi ma tawalla waan mas'uuliyadiisa siinayna waxa uu mas'uuliyadeeda qaatay dushaan u saarayna mas'uuliyada uu qaatay oo inuu nabi maxamed khilaafay ma qaadi karta ilaahay markaad hortagto دلو يرعى واد خلافتي صوماها قاده حكمك ددك النبي خلاف صلى الله عليه وسلم ابال مرينتا اليه سو ديار غرو ادا قاطو دورتي يا قفك سبيل المؤمنين اجماع المسلمين تخلافنا وح مسؤوليته او قاتن مسؤول كو دغين waxaan galinaynaa naarta jahannam ilaahay subhanahu wa ta'ala saas taraatid haday mar culumad iswaafaqaan qofka uma banaana wax kale way inuu raaco maxaa haray haday iskhilaafaan miisaan waxa kitaabka ilaahay sunnada nabi فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى وحده سبحانه هدي الضوضاء هداد للدودين وحال راعي إجماع لكن هدي لا إسقلافه وعليه الله يا رسول الله وعليه وكتابك وعليه رسولك وعليه مركو تشوغي صلى الله عليه وسلم سقال لو جيج بعد جيسنا سنة دي سلو عليه إذا وعليه كتاب يسنو عليه دانا وعلمات قفكي garanaya waa inuu kitaabka sunnada u celiya kan garanayna waa inuu culumada weydiiyo diinkii Allah mar hadaad iskhilaaftaan kitaabka sunnada u celiya saas ilaahay amr wama ikhtalaftum fihi min shay fa hukmu ila Allah ilaah mardihi subhana ka rabtaan qaad dil iskhilaaf mid ka rabto iska qaad haday culumadu iskhilaafaan ka doonto qaado mardihi ilaaah ya sida wadaadkii minhaajka akhriye minhaajka u joogta مركز ودور قيل صامر قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا مركز يروى ميل ركو هرتمي كاثر التبرع دينكم مساسا ميل ركو هرتمي 100 تاس maxay metelaysa waxay ka dhigantahay aama warkeed aamadii tiri cilmigu waa aqli rag oo la aruuriyay taasay ka dhigan hayta ka rabta raac ma nabiga yiri ka rabta raac ma ilaaha yiri maxay ilaahayna leey
إلى واحد وحنا ليه وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ساس إلهي ليه سيدا سواجبك نبي محمد المحوري صلى الله عليه وسلم حديثك الترمذي أبو داود يقيم حديثك محور نبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد حديث عرباض مصاري إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أرنتو واحد تايقفك نولادو إن كمت اسقلاف ربنا وأركي الدونا هاي اسقلافك ما لعك ما دعك ميانا مباهنين دردارنك النبي مركز صلوات الله وسلام عليه وأباهن نبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين واحد لازمتان أنا قد طريقة الخلفاء الراشدين مسألة كستول لا يسكو خلافه أصولها هاتو فروعها هاتو وإن الله بتا حق وإن الله بتا سنة النبي قد لازمتان صلى الله عليه وسلم سيدا صدردانك النبي طريقة الصحابة متعصي أحايا مر هدي حديث كان النبي عضاضه وحلا قرب لغا مجري قلوب تودا وحا كوينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلوب تودا وحا كوينا النصوص الشرعية قف كقلافي او قولكيس الناس كقلافي درجته رب فضلك هكجارو علمك هكجارو اصغون امامك ميل لوغا دخين مرتبتيسا هوس لو دغين ايي ناس كشرعية راعي جيرين وانا طريقه بدبادده ساسي هاي امام مسلم صحيح سوى كوري عن ابي قتاده وغير ابو قتاده عمران بن حسين ايان لا جوغني جماعه قرابدنا ايان ku dhex sugnay waxana la joogay Bashir ibn Ka'ab ayana la joogay markaasoo Imraan hadith nabiga ka sheegay sallallahu alayhi wasallam wa hadithku nabigu yiri al haya'u kulluhu khair nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam al haya'u kulluhu khair markaasoo yiri Bashir ibn Ka'ab إنا لن نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف كتب تقبل وحا كقرا أما حكمة وحي شيء يسا حياة وحا كمتأ قيب وحسلوني إيا هيبت إيا قيب ضعف كيني هذا نبي نحوير كله خير من الحشاطي كاسور قيب ضعف فيها كتيرتا كتب تقبل كقرا هذا بعض الحكمة الشيئية فغضب عمران حتى احمرتا عيناه عمران بن حسين وعرودي إلى عنده أي قدوتين أدبوا كلاب محايا للنبي محمد يريء لي صلى الله عليه وسلم كيسوا لي بعض الكتب حقوقا كتاب هيبل وحقوقا انت هسمك قفل كتاب هيبل وحقوقا حي وحوال بكتاب وحقوقا هو عن كتاب وحقوقا الله كف يا ضلال من كتاب والغيلي كرسوما والكتاب الاردن ما كتاب كلا ربا وغو يahay waa xukunka ilaahay soo dejiyo nabi maxamed waaf nabi maxay loo soo diibay saasa la raba ee kitaab waxa ku qoran kitaab xuye intaas guguma filan sidaas ay saxaabadu ahay qowlka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadii qowl kale la agdhigo way ka kulula jireen way ka caro jireen إمام الترمذي عبد الله بن عباس وكوري وحوري عبد الله بن مسعود أو حوري عبد الله بن عباس وي قلد النعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد النعلين وأشعر الهدي قيل هدي عربت وحي سميتشرين سركة أيا وحلو سميتشرين لغنتا وحلو قلينا لبك بوض وقلي قيلي هدي وحال فهم يا قيل أسئلوا يا هدي حرم كاللوذي ساسترد إنكو حد قد بمين wuxuu kala sameeyay nabigu waxa la yiraahdo ishcaarku waxay tahay in dhiig laga keeno halkaas deegta ama dhinaca geela ayaa midisaas loogu sareeyay dhiiga ka imaanay dhiigu ka keenay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam madhabka xanafiyadu ma ogol oo abu xaniifa wuxuu leeyahay waa mithla in neef xoolaa dhiig laga keeno ee la wado waa mithla waa suurad xumayn ma banaana saas u leeyahay fiir markuu sidaas xadiidkii u sheegay عبد الله بن عباس فيري حديث كاس امام الترمذي مركو وريي وحو يري سدا سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة وكيع وشيخ إمام الشافعي
وغير حديث كان مركو وريي حفيرننا رأيك حنفية حفيرننا أهل الرأي قول كذا مسألة ما هم مسألة والبا مسألة إشعارك أو نفك هديك حرمك الله وديك إن لقاك كان مسألة كقبان أو إنه تي مثل حفيرننا وحقيمان مالك هتحقلننا مسألة ذا سوي صبرت واحد تاي إشعارك وصنه قول كان أهل الرأي يقولوا بدع وحدها هو الشيخ الشافعي ساسي هاينا أئمة المسلمين حديث كان نبي قول كخلافة قيمة ملك أي عضات ما هن إمام كير قيمة ملك ما إمامكم قيمه ليه لكن يخطئ ويصيب قول كمركي عضاته إنه النص شرعي خلافة بدع وي مرد الدين لك دقي إلا هو شيء الدين لك دقي شرعينا كم ضاين وبدع ساسي دي جرين سلف سو ما تشدي طبراني معجم الأوسط حكوري عروة بن الزبير إنه يمد عبد الله بن عباس أو كويرنيه ضدك وابادي عبد الله ضدك هذه عبد الله بن عباس بادي مركز يصير محي كل عام سانو بادي ضدك مركز يصير واحد ليضة قفك حج أما عمره صاحرتي مركو حرم كيمادو إيه طواف كالسمي سعي وحلال نقكر أنا تمتعات قبطاوي سلدي تمتعات قبطاوي سيدا صددك وشيء جيدا هوي سيدا صددك وشيء جيدا مركز وحو يري صددك وشيء جيدا مركو يري وولبا وحو يري فقد كان وحدها عروة بن الزبير فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك أبها عمر بن الخطاب يا أبو بكر ويديد جيرين أرنتاس أبونا ددكي واحد أساس وشيء جيدا عفوا أبها ما أبو بكر يا عمر عبد الله بن عباس على حديثك أبا كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس وحير أبو بكر يا عمر بن الخطاب ويديد جيرين أدونا واد بناينس أدونا واد بناينس كورن ددك صادو بادينس ساسو كوي محيري عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس وغيري أهما ويحك آثر عندك أما في كتاب الله وما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيري أبو بكر يا عمر ما لبداس هوغي واد هوغتي ما لبداس كو لا دورانيا ما سوخا كتابك الله كسوغا نبينا عدي صلى الله عليه وسلم لبدا كا دورانيس نبيغا عدي تمتع ساسو كوي وفرس أبو بكر يا عمر واللبدا الشخصي بعد النبي ugu fadli badan ummad واللبدا ugu cilmiga badan واللبا aan hubno ahlu janna inay yihiin واللبا tafsiirkooda iyo hadigooda nabigu noo dardaarmay sallallahu alayhi wasallam laakiin ma ahan anbiyo macsuumin ma ahan kuwa qowlkooda qowlka nabiga la gabdho ee ayaga ay waajib ku tahay nabiga inay raacaan sallallahu alayhi wasallam sida nabigana isma uma haystaan ma ahan macsuumin wa Abu Bakr iyo Umar hadii qowlka Abu Bakr iyo Umar markuu xadiiska khilaaf aan la qaaday ما دحي كرتا امام كدنبيه قولكيسو حديثك خلافه ان لا قاطو ماي ما دحي كرتا شرع ما نقوكر دين ما نقوكر الهي لوغا عبسدا وناس امام احمد ابن عبد البر جامع بيان علم وفضله سعيد بن جبير وحي كوريين عبد الله بن عباس انو يري نبيغا تمتعي صلى الله عليه وسلم مركزو كوري قروه بن الزبير نهى ابو بكر وعمر عن المتعه عن التمتع أبو بكر يا عمر أيان نهيي تمتع حرير النبي صلى الله عليه وسلم التمتعي مركز عبد الله بن عباس كيري وراهم سيهلكون حم أمرين ضد كانوا إنه هلاك سميا أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر وحن ليه هاي النبي محمد يري صلى الله عليه وسلم قالوا يقدم ليه أبو بكر وعمر الديدين بلوحوا اسكرت لقى يفير أبو بكر يا عمر فضيلة كستو إليهين ونا كستو إليهين أتباع ذا النبي كمدي إما هن أنبياء كله أو قول كود النبي قال قرب لي كرم ما وين تفهمته وحي تاي وظيفة دودو دينك النبي أنا بدك أشياء ساسوي وظيفة دودو واسع ما هن معصومين قول كود قول كالنبي قال ما قرب لي هدي أبو بكر يا عمر قول كود مركو خلافه قول كالنبي صلى الله عليه وسلم راعد الله راعو أما قول كالنبي قال لك قرب لقول لقوها لك سميو محاضو ملايين إذا إمام كدن بي ما لقوه بتبادية ما دعي كرتو
ilaahay inaan marka ka cabsano oo aan nabiga sallallahu alayhi wasallam diinka ilaah noogu soo dhiibay qulubtayda ku weynayno siduu yahayna aan u raacno sidaas aan la haboon إمام الترمذي وهو وريي من غير شام أو يمد عبد الله بن عمر بن الخطاب مركز ويدي تمتع ويري كورن قفك إنه عمره كنت تمتعه أو أنت عمره حرطور لما يستوى حلاله بإسلام بلي حجك وكدمنا حجيه كورن مركز وهو يري هي حلال تمتع وحلال مركز منك غير شام وهو يري إن أباك قد نهى عنها midaan ahayd mid abaaka igu jir aabaha aadiday Umar ibn Khattab ku yiri kawar aduguna waxa leedahay waa xalaal markaas Abdullah ibn Umar wuxuu ku yiri araayta in kana abi qad naha anha wa sanaaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kawar hadii aabahay diiday rasuulkuna sameeyay salawatullahi wa salaamu alayhi amru abi yutaba amru Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ما أمرك الرسول كلا راعى ما أمرك أبيه سأسكوي مركا هدين مسلمه هاي وغيري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أمر رسول الله ما أمرك الرسول كلا راعي كور ما هو ملاين عبد الله بن عمر بن الخطاب أبيهس إنه هو دقيق ما تحك وأبيهس وخليفك الرشيد كاه سو ما جديد ما لكن واحد تهاي واحد لا يسكو قلبي مرتبه النبي iyo cid kale ma la isku qabo qowlka nabigana cid lama garab dhigo qowlkiisa saas weeye hadii marka aan la isgarab dhigi karin qowlka Umar iyo qowlka nabiga sallallahu alayhi wasallam qowlka imaam a'imadeen muslimiinta kamida sida Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad iyo qowlka rasuulka la isgarab dhigay ma dhici karto mar hadduu cadaado si cad ay u cadaato inuusan xujo ku taagnayn qowlkan كي رسولكنا وعديه وإن قولك رسولك للرعا صلى الله عليه وسلم عبادة بن صامت وحاكو سوغان ابن ماجه وحو راعي معاوية بن أبي سفيان يقول دولان روم لقد دولي مركاسو وحو أركي عبادة بن صامت ضد وحكو كلاقادانا يدهب عن إسلاء مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم وحو الدهب لكم أقاد الكرو إلا إنو إسلاء يهي معاني markaas Muawiya wuxuu ku yiri aniga ma arkay riba inay ku jiro waliba wuxuu ku yiri ribaad qunaydan uu cibaada ribaad qunayda markaas anigu riba arkimayo Muawiya riba aniga ma arkayo mar hadii labadoodiba xaadir yihiin oo la kala bedelanayo oo aan midayn ahayn riba imam muuqato markaas uu yiri nabiga yiri aan kula yahay inuu kaas ra'yigaaga igala hadlayda Muawiya waa saxaabi ra'yigaaga igala hadlaysa nabiga yaa yiri ana la soo taagan sallallahu alayhi wasallam إلهي وين هدو دولان كان نبت إيجا عريو مال أديك مسؤولات كتاي كون نولامي كوران مر الله مر كلابتو شام كلابتو وكجور عبادة مركز المدينة تجي عمر بن الخطاب وجود عمر بن الخطاب مركز أمير المؤمنين مركز وشارع عمر محا عبادة وسوجود كاس وشارع ويري النبي يري أيانه مركز ويري وما أركيو أنا مش أصلا كون نولامي إنه نكاس مسؤول كان نقول markaas uu laabo cibaadatu saamid ku laabo adiga iyo dad kula mida meel aysan ku sugnayn wax qayra kuma sugna waa meel xun Allah xumeeyo dad sunnada weyneynaya meel aysan ku sugnayn ee qowlka rasuulka ilaalinaya sallallahu alayhi wasallam ee wax aan la garab dhiga aysan jirin dadka noocaas meel aysan joogin qayr male ee ku laabo Muawiya warqad u qor wuxuu ku yiri wax xuguna ku mirid ma xukuntid asaga kamid ma ummadda xukun كاريجي سبيشيسو إسكاغان نولان كله ضد كلنا وأين أمرتها يقول كعبادة وشيء أو النبي كسر نقلنا هذا ولا جرب التاس كور ساس أهل الصحابة دولكو خير مرة هذا إنسان شوقين ضد سنة النبي وينين يا صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي عن قول كله جرب دقي مركي عضاته سنة النبي سنة النصرين يا هذا إنسان شوقين دولك سو خير مال وخير مال دولك خير كيس وأمضى نوع عاصمة كوسوان ee uu nusraynayda sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Umar wiilkiisi Bilal aha ayuu xadiis nabi u sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabi Muhammad ayaa yiri la tamna'u ima Allah masajid Allah gabdhaha wa adooma ilaahi dumar ha u diidinina guryaha ilaahi oo masaajida
ilaahay ku caabudeen markaasuu anagu waa u diidayna markaasuu aad u aydu caayana waxay saddex goor ayuu lacnaday la'anaka allah ku sida riwaayadaha gobol ku sugan saddex goor markaasuuna booyay Abdullah ibn Umar wuuna ka istaagay meeshii ka tag meel lagu sugnaado ma meel nabi Muhammad qowlkiisa oo cad qowl kale la garab dhigay wa in qulubta mu'miniinta ay ku weynaata sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam wa badbaadada ummadda adduunka lagu badbaado aakhirana lagu badbaado waa waxa sabab qofka ugu noqda xawdka nabiga inuu ka cabo waa waxa sabab u noqda qowlka nabiga oo laga leexdo iyo diinto wax lagu daro inaad xawdka nabiga ka qabto waa wax sabab u noqdo sidaasay saxaabadu ahaayeen dhamaantood sidaasay ahaayeen taabiciyaalku sidaasay ahaayeen a'immatul huda al-a'immatu arba'a iyo qayrkood dhamaan waxay isku waafaqsanaayeen qowlkooda iyo qowlka nabigu markay iskhilaafaan sallallahu alayhi wasallam ka nabiga in la qaado sidaasay dadka amri jireen ijmaac ay ku ahaayeen dhamaan mid kasta oo kamida waxa laga soo naqliyay xadiiska markuu saxiix yahay isaga madhabiya waxa laga soo naqliyay qowlkayga iyo qowlka rasuulku markay iskhilaafaan ka rasuulka qaado imam shafi'ina ijmaacu ku tilmaam oo wuxuu ajma'a al-muslimuun ala anna man istabanat lahu sunnatun an rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam aw anna man istabanat lahu sunnatu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam lam yakun lahu an yad'a li qawli ahad min an-nas qofka mar haday u cadaato sunnadii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam halal uma banaana qof qowlkiisa inuu gato shiiqayga khilaafsan madhabkayga khilaafsan uga taga uma banaana إعلام الموقعين كوكو شيغي علامة ابن القيم مقدمة صفة صلاة النبي نواكي كوسو نقليي شيخ ناصر الدين الألباني ومقدمة رمتي فائدة بدن او اي مدن ان ميل كاستا لو اخري مقدمة او قفكو اما نقدو طالبكي اخريسناي اما شيخي اخريناي او نقدو maxaa yeelay muqaddimadaas kitaabka qaybtiisa dama kama faa'iideeyay sababtoo ah qofka horta koow waxa laga rabaa waxay tahay inqiyaad hoggaansan taama in laga helo haddaan ba hoggaansan la helin sunnada loo sheegay muxuu ka faa'iiday marka waa in la nashriyo oo muqaddimadaas aad loo akhriyo aad loo akhriyo way aad in loo akhriyo way haddaba haddaan ogaanay madaahibta a'imadii sunnada inay ka madhab dhigay jireen in badan oo kamid ah iyo qaabkay uga madhab dhigay jireen aan ogaanay a'imada muslimiinta inaysan macsuumiin ahayn ee ay zalaleeyeen zalladoodana ay maqfuuro tahay sida xadiiska nabigu nasgareeyay sallallahu alayhi wasallam oo ajar bal looga qorayo iyaga waxa ku fidnooba laba qolo ku fidnooda zallada caalimka laba qolo ku fidnooda qolada koobaad waa daa'ifo markay arkaan imaamku mas'ala ku gafay aflagaadeynaya ceebaynaya dhaleecaynaya bal xasanaadkiisa sayi'aad u bedelaya xasanaadkiisa ayay sayi'aad u bedelayaan daa'ifada kalena waa daa'ifo caalimka weynayda aqwaashiisa dhammaan ka dhigta sawaab aan marnaba aqbali karin qalab dhammaan bal xataa sayi'aadkiisa xasanaad ka dhigay waxayna ka dhigayaan khada isa fiqi amiiq ah oo aad u xeel dheer xaquna wuxuu u dhaxeeyaa labada daa'if xaqu labadaas daa'if u dhaxeeyaa imaam shaatibi rahimahullah muwaafaqaadka wuxuu ku yiri in zallat al-aalim la yasihu i'timaduha min jihatin wala al-akhdhu biha taqlidan lahu وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ولذلك عد الزلة وإلا فلو كانت معتادا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نصيب إلى صاحبها الزلل فيها كما أنه لا ينبغي أن ينصب صاحبها إلى التقصير وأن لا يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين وغيري الإمام الشاطبي رحمه الله عالم كاسم بالرحشدة أما قفك أو قفو ما لا عسككر ما بنانا إلا التقليد سدو الغطة يدو الله يسكر راحو ليراسك يقو ما بنانا ما حايا للشرع يقي قرافصن إلهي كوسو دجي زلة اللي يرهده زلة الله ما بهين حدي أي ترسك الشوك ما الله يرهدين
sidoo kale waxaan banaanayn caalimka mas'alada ku gafay in lagu tashniiciyo oo la yiraahdo taqsiir uu sameeyay in lagu caayo ma banaana in la yiraahdo sharciga allu si kas ah u khilaafay ama u khilaafay ma banaana dhamaan in la yiraahdo asagoo ogu sharciga ilaahay khilaafay waxay ka soo horjeedaa darajada uu diinka ilaahay ka joogo marka xaqi muxuu yahay imaamka u ducee ixtiraam iyo xurmad badan u hay wanaag badan ay diintan u sameeyeen aimadu waa u qidmeeyeen annagana wax badan ay noo qabteen sharaxoodii iyo jamcintoodii adilada ay jamciyeen aan ka faa'iideysan ayadan diinta ku fahanay wanaag aanan abaalkeeda gudi karin ay noo galeen waxay naga mudan yihiin duco lama ilaawa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu bima tukafi'unahu fad'u qofka wanaag in sameeyo nabigu sallallahu alayhi wasallam u abaal guda hadaadnaan u abaal gudi karin u duceeyay miyaan u abaal gudi karna waxay noo qabteen uma abaal gudi waxay naga mudan yihiin duco ee aflagaado iyo gaf naga mudna tan kalena ma mudna qowlkooda markay cadaato inuu zalay ina raacno oo aan ka tagno sunnada nabiga cad ma naga mudna العلامة ابن القيم رحمه الله وحير من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يطبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته ومنزلته في قلوب المسلمين. إعلام الموقعين كجزء صدحات سقاشن يشان صفحة بحر علامة ابن القيم قف كسته أو شرعي إسلام كي واقع وحوص قطعه أو قعن وأوجيه قف وين إسلام ككله وناك بدن wax badan u qabtay islaamka iyo ehelkiisa meel weyn ka jooga imaam weyn ah waxa dhici karta inuu mas'ala ku gafo oo ku simbirraxdo way dhici karta mas'aladaas asaga waa loogu cudur daara oo waa ku dambaabay lama laha bal ajra laga siina ijtihaadkii uu dadaalay ma banaana in lagu raaco mas'aladu ku gafay cadaatay oo naska sharciga khilaafsan mana banaana in la qiimo rido oo darajadiisa iyo makaanadiisa hoos loo dhigo iyo qulubta muslimiinta meeshu ka joogay ixtiraamka u hayeen in la qiimo rido oo laga dhigo qof aan macna lahayn ma banaan labadaas xaq u raacay oo dhaxeeya labadaas daa'ifo ka shar badan jirta oo ayaga dhanba ka shar badan waxay tahay daa'ifo ayaga muhiimadeedu ay tahay inay ruqaska culimada aruursadaan hawadooda ay waxa rabaan diinullah inay ka dhigaan ayna iska dhigaan inay diinka alle ku socdaan ka faa'iideysamayaan aa'imadii muslimiinta ijtihaadkoodii fiqigoodii fahamkoodii juhdigoodii mid wuxuu iska dhigayaa inuu yahay mujtahid asagoon ehel u ahayn markaasuu mas'alo walba rabitaankiisu raadinaya imaam baneeyey imaam ruqseeyey ruqasku aruursada taasuna waxa dhici karta inay gaarsiido diinka bax asagoo isku haysta inuu diin ku socdo maxaa yeelay rabitaan ku socdaahe adoon ilaah adeecay ma mar hadii uu rabitaankiisa yaa baneeyay meel walba culimada muslimiintuna taas ay aad u sheegaan dadkana ilaahay laba u qaybiyay qof rabitaankiisa ku socda iyo qof nabiga adeecsan ilaahu wuxuu subhanahu fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله waxaad ogaataa nabiga suubanow adiga hadaysan ku yeelin oo aysan ku ajiibin rabitaankooda raacayaan dadka ilaahay balwa yaa ka baadi badan qof rabitaankiisi raacay rabitaankii oo aan waafaqsanayn hanuun xaq rabbi ka yimid Sulaymaan Taymi wuxuu rahimahullah in akhadta bi rukhsati kulli aalimin ijtama'a fika sharru kullu haddaad qaadato caalim walba mas'ala u baneeyay sal intaas aad aruursato below dhan aday isku ka iimaanay sharo dhan aday kugu kulanta xaafid ibn abd albar
جامع بيان علمي وفضله وكل شيء مركز وحيد هذا الكاس مركز صور نقلي هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف قفك الرقص كأرور صدا إن شرطا كوكولانتا وإجماع خلافنا كميوغ الإمام الأوزاعي رحمه الله من أخذ بالنوادر العلماء خرج من الإسلام مسائل كالنادر كا الزلوين كعلماء كدع عن قفك أرور صدا إلى الشيخيب الهدب بني ورمحسلان حديث كان قلافت هذا الشيخيب الأقب وماذا كالشيخيب كلي انتاس أرور صدا قفك أسو إسلام كواكبح حيالي رابطان وكسعود الدين إلهي كنا الصعود جامع بيان علم وفضل الإمام ابن عبد البر كل شيء محاضرات انتاسا كل دمي لكن هل كلمة أو وصية أيام كسو قاتمية ابن ماجه ابن أبي العاصم يقير كود وحي وريان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه ورسولك يري صلى الله عليه وسلم ذاتك وحا كجرة خير فريالك خيرك خير كيف فران شرطنا واحرة مل الله ماشي خير كإيمانية ويفريا مل الله ماشي شر ومضاس وإيمانية إذا هدي أبودان واحرية وهكذا كجرة كواس عكسيقود كوا شقدود أي طهي إن الشرط صافران خير كان أي قفلكو دجيان وحرا ركاس النبي يري صلى الله عليه وسلم فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه تي وناك بدني طوبى وتعنيث أطيب مؤنث كديوي تي وناك بدنيت أو جنة أهات وحي أسقناتي قفك إلهي كدغي خيرك فريالكي سقعميس وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه وادي جهنم روحو أسقنات إيا هلاك قف إلهي كدغي فريالكي شرطة قعميس وحان هذا الكاس يحديث كاس ولا جيدا قف كاستا oo naga mid ah rag iyo dumar culummo iyo dulaab yar yar iyo waaweyn waa in qof walba aad u fakartaa inaad noqoto miftaaxul khayr inaad noqoto naasirka sunnada iyo tawxiidka inaad noqoto qofka ummadda ugu sabab noqda islaax tawxiidka inay tawxiid ku dhex faafo shirkigana ay ka fogaadaan in sunnadii nabigu ka dhex noolaato khilaafu sunnana uu ka dhex dhinto sunnadu ay faafto itibaacu uu faafo khilaafka sunnada la khilaafayana uu meesha ka baxo in daacadu ay ummadda ku dhex faafto fisqiga iyo macaasidu ay ka suusho miftaax inaad u noqoto si ilaahay jannada kugu abaalmariyo si aad u faraxdo maalinta murugada badan waa inaad ka murugto ka walwasho sidii mu'miniinta lagu yiqiin mar walba cabsi aad ka qabto inaad adigu noqoto ummadda mid sabab u noqdo shirki inay faafo sabab u noqdo bidca inay faafto sabab u noqdo in ay faafto khilaafu sunna oo sunnada la hoos loo dhigo ee aqwaasha khilaafsan la qaato ay ummadda ku dhex noolaato inaad sabab u noqoto ilaahay uga cabso mu'miniinta sifaada lagu yaqaan waxay tahay والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون مؤمنين وحال ويقانا وعضتك بحية ضاعاتك أي بحينيا أيها قلوب تودو عبسنا اسم آيات داس تفسير كده أيها عائشة ويدي دي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيثير رسولك الله آيات دان مؤمنين أي شيء يسو ما مؤمنين سينيستي وحضي مياه قمر عبي ودم بيقودا كبغيا ما هنا ومؤمنين تو كده صدقات بحية صومي إليه نوسان كأقبلين كعبسنا يوي مؤمن كوحا لغو يقانا يجمع إحسانا وخوفا مؤمن وحو اسكو درا إنو عمل كيسات وناجيو مفتاح الخير نقضو سنة النوريو توحيد كالنوريو داعة إلهي النوريو عبسنا وقامو سير أمد وحقلات ساسا لغو يقان اللغو ما يقانو إنو اسكدير ردو أو شرطة فرق النقضو أساقون اسوغي مركا قفل بابا النفسيسا إلهي هو غبقو هو استاجدنا هو دياريو إلهي وين وحن ويدي سنة
wixii aan asiibay ilaahay inuu iga aqbalo ummadana ku anfaco waxaan ku gafay anigana ii dhaafo ummadana sharteeda ka ilaaliyo وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد